الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتابك أين هلكن قلبتك بلا بينا وحمد عيسى إلى متن الغاية والتغريب وحنو عنك يهي متن أبي شجاع أي عنك يهي waxa alifay sheekh qaadi ahaa oo naaristiisana Abu Shujaac loo oran jiray magaciisa oo saddexaadna la yiraahdo Ahmed bin al-Husayn bin Ahmed al-Asfahani. ruhantii waa kitaab kooban sida isaguba inoo sheegi doono oo kutubta mukhtasaraadka la yiraahdo kamid ah. maca dalik isagoo kitaabkaasi kitaab mukhtasara ah waxa uu kamid yahay fiqahaan kutubta ugu tadaawulka badan ama loogu qaadashada badan yahay ee ugu caansan dadka muslimiinta dhexdooda. waa kitaab ruuxantii ka hadlaya qaybihii uu fiqigu lahaa dhammaanteed. waxa uu ka bilaabayaa tahaarada, waxa uu ku xigsiinayaa salaada, waxa uu ku xigsiinayaa zakada, soomka ayaa ku xiga, xajka, mucaamalaadka qaybka la yiraahdo iibku ugu soo horeeyo. inta markuu dhameeyo dhaxalka ayuu isna u gelayaa, guurka iyo wixii ku xidhnaa ayuu isagana ka hadlayaa, jinaayaadka iyo bal dadku waxyeelooyinka isu geystaan iyo magaha ayuu ka hadlayaa, xuduudii ayuu ka hadlayaa, jihaadka ayuu ka hadlayaa. yani abwaabta ay lahayd kutubta fiqiga oo dhami waa uu ka wada hadlayaa. waa runtii kitaab aad iyo laxaad loo jecel yahay oo ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay waxa ku tusinaysaa شروحda faraha badan iyo tacliiqaadka lagu sameeyay tiraba ilaa 20 sharax ama xaashiyo waa uu leeyahay oo qaarkood ay gaaraan ama 4 mujallad ama wax ka sii badan ay gaaraan oo ilaa tiraba 5 meelahaasi ay dalkeena yeelaan oo laga helo. waxa u dheer culimada qaarkood ayaa nasribu yani waa hadal socdo oo aan qaabka gabayga aanu soconin. culimada qaarkood ayaa qaabka gabayga xataa u bedelay si ay u fududaato qabashadiisu, waayo gabayga iyo hadalka kala qabashadiisu way kala fududahay. sheekha camradi la yiraahdo ayaa kamid ah nihaayatu tadriib ayuu bixiyay fi nadmi ghaayati taqrib. sharax weyna sheekh Ahmed al-Fashani la yiraahdo ayaa ku sameeyay tuhfat al-habib bi sharh nadmi ghaayati taqrib ayuu bixiyay. culimo fara badan oo kala nadmideen ayana way jiraan. ilaa xad wuxuu gaaray xataa luqooyin kale in loo turjumo oo loo bedelo. waxa la tilmaamaa luqadda Faranska iyo luqadda Jarmalka ee Almaaniyada la yiraahdo in labadaba loo turjumay iyo luqooyin kale oo fara badanba. man yuridillahu qofka ilaahay la doono bihi isaga khayran yufaqihu fi diin, waxa uu fahansiiyaa diinta. rawaahu sheekhan xadiidka Bukhari iyo Muslim ayaa wariyay. inta badan kutubta fiqiga xadiidkan ayaa lagu bilaabaa. waxaana la yiraahdaa baraacatul istihlaal baa la yiraahdaayo xagga marka laga hadlayo badiica ama fanniga balaaqada marka laga hadlayo baraacatul istihlaal baa la yiraahdaa. macnaheedu waxa weeye hadalka oo masalan marka la guda galayo la soo horumariyo wax laga dheegan kara ama laga fahmi karo maqsuudka iyo ujeedada soo socota waxay tahay. marka la leeyahay man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi diin, waxa laga hadlayaa fiqhi inay tahay ayaa laga fahmayaa. halka ay kutubta kale carabiga ta'allamu al-arabiyyah wa 'allamuha an-nas ay misalan ku bilaabaan bismillaahir rahmaanir rahiim. bismillaah ilaahi magaciisa alliya ar-rahmaani naxariista caamka alaha ee naxariistiisa adduunyo cid walba gaarsiiyay. magaciisa alliya ar-rahiim naxariista weyn ee gaarka alaha ee dadka muuminiinta aakhira ku gaar yeelay ayaan magaciisa ku bilaabayaa bu sheekhu yiri. alxamdu mahad lillaahi ilaahi ayay u sugnaatay mahadi رب العالمين عالمين تربيجودها معناه مالك جودها عالمين تجن إنس ملاك وحيد هيك صهري ودن عيسى كصهري ودن مالك جودها. وصلى الله والله أو نحريس هذه وسلمها النبي على سيدنا سيد كان محمد خاتم النبيين النبي هذا خاتمي وجدا به وعلى آله آل كيسينا صلاة هي سلام تاسها هذا وسحبه يا أصحابتي أجمعين دمان تودبا. وشيخ وحكم بلا إلهي مقعيس ومهضا إلهي نواه كحكسي
salliga rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ku saliyeyna waa uu ku xogsiyeeyo hadal kasta oo la bilaabayo waxa ugu wanaagsan in ilaahay magaciisa lagu bilaabo kadibna mahadiisa lagu xogsiiyo mar saddexaadna lagu xogsiiyo salliga rasuulka sallallahu alayhi wasallam lagu saleeyay isagii aalkiisa iyo asxaabtiisaba amma ba'du buri inta dabadeed faqad qaala alqaadi wuxuu qaadigi abu shujaac kunyadiisu ay ahayd magaciisana looran jiray axmed ibn al-husayn bin axmed al-asfihani reer asfihaniha asfihan ayaa loo nisbay ama asbihan iyo asfihan labadaba waa la yiraahdaa waa balad macruuf ahayd xilliyada hore oo imikana ka tirsan halkan dalka Iran la yiraahdo magaalada Tahran iyo Shiraz ayay u dhaxaysaa rahimahullahu ta'ala Allahu naxariistay sheekha ayaa wuxuu yiri saalani waxay weydiisteen بعض الأصدقاء صاحبة بركود وحي ويديستين حفظهم الله تعالى إلهي ها إلى ليوها دوره أن أعمل أن أصنف إن أن أقرأ أما أن أتصنف أي ويديسين مختصرا كتاب لقابي مختصر وهذا ما قل لفظه وكثر معناه وحل لفظه سنو يريه معناه فلا بدنا حنبارسا أي مختصر ليلة أن أعمل أن أصنف إن أن أدتشي وأن أقرأ مختصرا كتاب لقابي أي ويديسين أو في الفقه فقه كهضلية فقه اللقاهان وفهم حق شرعيهان وحل لها ما يستراحان وحل لها العلم بالأحكام الشرعية وأغان لأغاذو أحكامة الشرعية ولبا التفصيلية ذا هي لك لصاري المختصرة من أدلتها ولبا أدلة دين الله كسبضي إلا قال الصبحي وعلى مذهب الإمام الشافعي إمام الشافعي مذهب كيسنا كسوغا على مذهب الإمام بمعنى أحكامتي وكتغي يما سلوين كي وقبي إمام الشافعي على مذهب الإمام مختصر كاسو كسو عنيا أما وافقسنا على مذهب الإمام إمام كيسيدو كتغي أحكامتي سؤايا هيد الشافعي الشافعي لون نسبية الشافعي لون نسبيين يعني وأوغيس أفراد أيا لون نسبية مقعيسنا محمد ابن إدريس أيال إله رحمة الله تعالى عليه إلهي نحريسي سقول كي ساطي ورضوانه خيل نقشدي سيه في غاية الاختصار مختصر كاسو في غاية الاختصار قابين هل كي قدام بيسي خصوغا يو النهاية الإيجاز كوبيد قبل هذه أما هل كي قنت يدو أي خيط كان لبدن إري غاية إيه النهاية واسكم معنو اختصاري إيجازنا أينا واسكم معنا وحين كاسو يكون كلا دوينهن مجرده في غاية الاختصار قابن هل كي قدام بيسي قصوين ونهاية الإيجاز يكوبد هل كي قدام بيسي وحي ويديستين بولي مختصر نوع عاصة إن آن أدتشي ونصنفه ليقرب سيو قد واذو وحي مختصر كاي قعدسين ليقرب سيو قد واذو على المتعلم قفق وحبرانيا درسه أخرس شديسه ويسهل وليسهل يسده وقف الضاضو على المبتدي كمبتدي هضب بالوضي حفظه كرك قبشديسو سي أي وقسهلناتو أي يقعد صدين إن آذو قابيو أن نصور ليو ليقرب سي وقد واذا على المتعلم كمتعلم كاهي وحبرانيا درسه درسينتيسو ويسهل على المبتدي كان مبتدي هضب بالوضين وقف الضاضو حفظه كرك قبشديسو وأن أكثر وسألني وحكري ويديسان أن أكثر إن أنبضيه فيه الدحديث من التقسيمات قيبيالها إن أنبضيه أي ويديستين إن أن قيب بدن وقدقه وأن قيبيا أن أنتبضه ونسكو قوانين إيه وحصر الخصال حالتها إن أنكوبه خصال بمعنى حالت دي كستين شيء يبا إن أنكوبه هدان سنية الشيء إن أنكوبه تركو كوبه هدان واجبات شيء إن تركو شيء مثلا nimanka weysada oo kala markuu sunnayaasheeda inooga hadlayo wuxuu oran doonaa waa 10 sunnayaasha weysadu ayagoona 10 ka ku koobnayn ayuu hadana codsiga daraadeed ayuu wax wal u sheegayba waa 5 waa 7 waa 10 saas ayuu oran doonaa wa hasr al khisal iyo xaaladaha aan sheegi doono khisal waa xaaladaha kuwa waajibka kuwa sunnayaasha ah koobideeda fa ajabtuhu waan jawaabay waan ajiibay buu markaa leeyahay ila dalika ka سؤاشا أي صاحبة قاركودي ويديين وانا جيبي طالبا أنيقو دوني للثواب أبا المرين أنيقو إلهي كيقود دوني حي لي دا إلى يومنا هذا وإنك آخرين إنه
cid waloo maqashaana ama wax ka maqasha ama wax ka akhrisataana dee waa u ducaynaysaa sheekhu wuxuu dhintay 593 hijriyada ilaa yawmana haadaana way naga hayna marka waxaan u ajiibay buu leeyahay ee aan kitaabkan aan u qoray طالبا للثواب أنيقو إلهي أبا المرين كيدونية راغبا إلى الله سبحانه وتعالى إلهينا وليبا كبريا أما كرجينيا سبحانه وتعالى في التوفيق إنه يوافجيه للصواب سي صوابك إنه يوافجيه إنه يسوى إلهي على ما يشاء وحضون قدير متكروي وبعباده أدومدي سنة لطيف مذور دمريوي أوصى فلا خبير وحقوقال نوعه حال ذو ذي أرمه ذا intaasi waxa la yiraahdaa gogol ama muqaddama la yiraahdo waa hordhac ka hadlaysa kitaabka ama gogol ayaa la yiraahdaa wuxuu inoo galay markaa daba lubigii ama asalkii kitaabka ayuu inoo galay kitaabu tahaarati tahaaradii ayuu inoogu soo horeysiyay tahaara markaa waxa la yiraahdaa luqada carabeed markaa tahaara laga hadlayo an-nadaafa ayaa la yiraahdaa tahaara waa nadaafad wuu istaahiri macnaheedu wuu isnadiifiyay weeye sharci ahaan markaa laga hadlayana waxa la yiraahdaa al-khulus min al-adnas ayadoo qofku uu iska saafeeyo ama uu ka fakado wixii wasakhiyaalka ahaa ama waxyaalaha wasakhiyaalkii wax xisiyahoo la arkayo ha ahaadaan sida nijaasooyinkii ama ha ahaadaan wax macnawiya oo aan la arkayn sida ceebihii xumaaye xantii iyo xasadkii iyo kibirkii iyo islayaabkii iyo waxyaalaha noocaas ahaa marka hadda laakiin wuxuu uga jeedaa tahaarada taas bimacnaa iska nadiifintii iyo iska saafi garayntii nijaasooyinka iyo quriyaalka xisiga طهارتنا وحا أصل oo lagu dahara qaadanaya waxa weeye waa biyihi marka biyihi ayuu barinta qaybood ay u qaybsamayaan iyo doorsoonka ku yimaada ayuu halkan noo galay anwaacul miyah noocyalkii biyaha المياه بيوغا التي وسي جزء بنيه تطهير بها إن لغو دهرقاتا 7 مياه واتدو بييو ماء السماء بيها سمده وماء البحر يبيها بضة وماء النهر يبيها وبيغا وماء البئر بيها عيلك وماء العين بيها إشا وماء الثلج وماء البرد يبيها لبدا بيو برفكا وعشاق يقول بيوغا أي بنان تهي إن لغو دهرقاتا واتدو بييو كو حكا ماء السماء وبيها سمد كيمي حيري ألا يوحر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ألا وحر سودجين يقول كينا السماء حقيدا بي أيودين كي سودجين سودين كظاهرية دراديد وكوا بيها سمد كيمادا وماء البحر يبيها بضة بيها مدحضا مدو محيري إننا يا رسولك صلى الله عليه وسلم ويديو وحيري رسول الله وحنا نهي ضد مرينا أيانا نهي إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ضد مرين بانو نهي بييرنا وانو قادنا يبولي أوكري مركا فإن توضعنا به بيها يرين معاني نسلني هدانو كويسي سنوانو هراضينا إنتانو بيها يرين معاني نسلنا آنو أقادنا عانو استعمال لعبتانون أفنا توضع بماء البحر بيها بدا مكويسي سنايو إنتان يرين معاني نسلنو ما يسكعبنا دبت رسولك صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته يسوى بدك هذا يوحي وحويان كي بيه سنة داهر كيهين وحي ميده كل احترانا وحلال يهوي بدي أي مركة رسولك حقن عامة كبحي وحولي بيه سنة ظاهر وحي حيوانات كيسا كل احترانا ميده هنا سنة حلال وعلي سقنا أصحاب السنن أي وريين وماء النهر يبيها وبيالك ووين سانيل يفرات يكواين مقالو وبياشينا مثلا دي ميشا سن كيمانا يدول كان مرين نقانو وكوا علماء ويكوي جماعة سين يكوانا بيها وبياشينا يغنى اللقوي سيسانيو وماء البير ككالنا وحوين بيها عيلشا بيها عيلك يسوون وبيا ظاهر اللقوي سيسانيو إن الماء طهور لا ينجسه شيء ورسول يقول بيو وطاهر وحب من نجاسيان وحل ويديه عيل بئر بضاعة لورن شري أي رسولك اللي ويديه مكاسو جواب تابحي عيل وحيالا قشن كي يوحي بختيه لغو طوره أيو أحا يساقوا مع ذلك وحال لغو طوره يا رسولك وحيري بيو وطاهر وحب من نجاسيان وماء العين
waa biyaha isha ama dhulka soo baxaya ama buur ka soo baxaya na waa maa'ul cayn maa'u thalaj wa maa'ul barad waa biyaha iyaguna barafka ah haddaba farqiga u dhaxeeya maa'u thalaj iyo maa'ul barad dhowr arrimood ayay ku sheegaan culimada qaarkood waxay yidhahdeen horta biyahani waa biyo isla barafahoo intay samada ka yimaadaan wada fadhiisanaya thalajkuna wuu ka yar midharoon yahay beradkuna wuu ka yar midho yar yahay bay yidhahdeen culimada qaarkoodna waxay yidhaheen maa'u thalaj waa biyaha marka hore samada iyagoo biyo-a ka yimaada dabeedna dhulka marka ay ku soo dhacaan ayay fadhiistaan qabowga daraaddii yaalaana bilaadda aadka u qabow sida shaam iyo ayuunbaa laga helaa bay yidhaahdeen maa'ul baradna waa biyaha samada iyagoo fadhiyay ka imanayaan oo sida midixdoo kale ah dabeedna dhulka marka ay ku dhacaan ayay dabeedna dhalaalayaan maka iyobaa sidaas biyaha noocaasina laga helaa bay yidhahdeen amaba lagu arkaa culimada qaarkoodna si aynu sheegayno waxay yidhahdeen waa isku midoo way wada marun bay xagga ka wada yimaadaan waa isku xaaladuune thalajka ayaa ka yar roonroon beredkuna wuu ka yara yaryar yahay ayay yidhahdeen labadaasay ku kala farqiyeen uma almiyaahu haddaba biyowgii calaa 4 aqsaam 4 qaybood ayay biyowgii u qaybsamayaan haddana daahirun mutahirun hayru makruuhin isticmaaluhu daahirun biyo daahir ah mutahirun waxna daahirinaya hayru makruuhin isticmaaluhu isticmaalkiisana aan la karaahiyeysan wa huwa almaa'u lmutlaq waa biyaha la sii daayey ee biyo un la yidhi waxau sheekhu yidhi biyihii 4 qaybood ayay u qaybsamayaan biyo daahir ah oo naf ahaantooda u daahir ah mutahirun wax kalena daahirinaya markaa daahir waxaa macna looga jeedaa naf ahaantooday u daahir yihiin maca dalik waana mutahir oo wax kalena way daahirinayaan oo jidh waa loogu daharo qaadan karaa maryo nijaasoobay waa lagu daahirin karaa waa mutahir hayru makruuhin isticmaaluhu isticmaalkiisana lama kohanin oo lama karaahiyeysto ee waa biyo caadi ahaan loo isticmaalayo biyahaasi wuxuu leeyahay sheekhu wa huwa almaa'u lmutlaq waa biyaha la sii daayey ee biyo un la yidhi mutlaq macnaha la idlaaqay ee biyo un lagu magacaabay ee aan wax kale lagu xidhin ama aan lagu dabrin masalan maa'ul mutlaq waa biyaha biyo un la yidhi biyaha haddaba wax lagu xidhay ee sifo kale lagu xidhay ama idaafo ama wax kaloo lagu sifeeyey ama wax loo idaafeeyey lagu xidhay ayaa iyagu meesha ka baxaya haddaba waxay yidhahdeen qaydkaa lafdiisa ayay laba kala qaadeen qayd munfaga oo ka fakanaya iyo qayd laazima bay u kala qaadeen macnaha qayd waxa weeye qayd ka fakanaya oo xilli yar ayuunbuu ku xidhan yahay un masalan iminka maa'ul bi'ri iyo maa'ul cayni biyihii isha iminka waxay u idaafaysan yihiin il iyo ceel bay u idaafaysan yihiin intaa ay ceelka ku jiraan ama isha ay ka soconayaan unbaa la odhanaya waa maa'ul cayn ama waa maa'ul bi'ri la odhanaya marse haddii laga qaado waa biyo unbaa la odhanaya ma soo raacaysa ishii iyo ceelkii ma soo raacayo markaa qaydkaa munfaga ah ee ka hadhaya waxba ma yeelo qaydka laazimka ah in marnaba ka hadhaynin maa'ul ward iminka oo kale maa'ul wardigaasi kama hadhayo kuwaasoo kale ayaa la diidan yahay biyaha wax kale inta biyo la yidhi wax kale oon ka hadhaynin la raaciyey markaa biyaha wax daahirka waxna daahirinaya aan lana karaahiyeysan isticmaalkoodu waa biyaha la yidhi biyo uun een wax kale lagu xidhin wa daahirun mutahirun makruuhun isticmaaluhu wa huwa almaa'u lmushammas wuxu uhi sheekhu qaybta labaad waa biyo daahir ah waxna way daahirinayaan laakiin waxa la yar kohday uun isticmaalkiisa in la isticmaalo ayuunbaa la yar nacay waxaana weeye huwa almaa'u lmushammas waa biyaha cadceedda lagu kulayliyey ayaa iyaga isticmaalkooda la karaahiyeystay iyaga oo daahirna ah waxna daahirinaya haddaba shuruudo dhowra ayay u xidhaan marka ay biyahaasi makruuh noqonayaan kow waxaa ka mid a horta in jidh loo isticmaalayo jidh in loo isticmaalayo ee aan haddii marya iyo wax kale loo isticmaalayo iyada karaahiye noqon mayso haaniyan waa inay biyahaasi ku jiraan ama lagu kulayliyo weel jaandi ah weel jaandi ah waa in lagu kulayliyaa haalian waa in ay bilaad kulul ay tahay bilaad kulul waa inay tahay ee meel markaasun yar kululaatay waa inaanay noqone waa inay meel
asal ahaan kulayl ule waa inay tahay. marka haddaba arrimaha la helo ee weelka jaandiga ay ku jiraan ee jir ahaanna loo isticmaalayo ayaa la karahaystay bay yidhaahdeen. haddaba maxay tahay cillada karaahiyadu? cilladan loo karahaystay maxay tahay? culimada qaarkood waxay leeyihiin karaahiyadu waa karaahiye sharciya. karaahiye sharciya weeyaanoo xadiis baa ku soo aroortay inaan biyaha noocaas ah lagu weysaysanin. culimada qaarkoodna waxay leeyihiin mee karaahiyadu sharci maahe bimacnaa waa min jaanib طib, waxa weeyaan xagga dhakhtarnimada oo masalan weelkaa jaandiga ah marka biyaha milicda lagu dhigo waxbaa ka soo kaca, wax calowa ayaa zuhuma ayaa ka soo kacda. dabeedna wixii ka soo kacay ee weelka cadceedda iyo biyaha isku jiray ay isla soo kiciyeen ayaa marka jidhkii la mariyo ayaa wuxuu daboolayaa masaamta iyo meelaha jidhka uu ka neefsado ayay daboolaysaa. dabeetana baras ayaa ka dhalata oo ka timaada. sidaas ayuunbaa xagga dibiga ahaanubaa loo karaahiyey, xagga sharci ahaan wax karaahiye ah ma aha bay yidhahdeen. xadiidkaas ku soo aroorayna inuu daciif yahay ayay isku waafaqeen. wa daahirun qaybta saddexaadna waxa weeye biyo daahira hayru mutahirin oon waxba daahirinaynin. wa huwa almaau lmustacmal waa biyaha la isticmaalay, waalmutagayiru iyo kuwa ku doorsoomay bimaa shay khaaladahu dheehay oo min adaahiraati waxyaalihii daahirka ahaaya. wuxuu sheekhu yidhi qaybka saddexaad ee biyuhu waxa weeye biyo daahir ah laakiin aan waxba daahirinaynin. biyuhu waa daahir, naf ahaantooda waa u daahir, laakiin dahaaro kuma gelayaan oo kuna weyse qaadan maysid, jinaabana kaga maydhan maysid, mara kaa nijaasowdayna ku daahirin maysid, laakiin naf ahaantoodan bay u daahir yihiin. waa maxay? wahuwa almaau lmustacmal waa biyaha la isticmaalay. biyo la isticmaalay oo masalan waysadaadii oo kalea tashti u dhigtay ama maydhashadaadii oo kalea jinaabada ka maydhaysaa tashti u dhigtay, biyahaas ayaa la yidhahdaa mustacmal. marka waxay leeyihiin shaaficiyadu ama madhabka shaafici waxa weeye biyahaas inay nafahantooda u daahir yihiin. marka ay nafahantooda u daahirka yihiinna waxa weeye marka aanay isbedelin ayay yidhahdeen, ama aanu wasankoodii kordhin. intii ay ahaayeen markii hore haddaanay ka kordhin ama aanay isbedelin biyihii waa daahir nafahantooda, waxbase ma daahirinayaan. marka waa biyaha la isticmaalay weeye een isna bedelin aan kordhinna. laakiin waxay u badan yihiin culimada intooda kale inaan biyaha noocaasi ay daahir mutahire ay yihiin oo wax mutahirnimada ka saara aan la haynin. waxaanay wax daliilo xoog badanna uma hayaanoo keliya waxay tilmaamaanuun yacni rasuulka iyo saxaabadiisa iyagoo safara iyo taraagyo dheer marayey oo u baahnaa biyaha ayaa markay weysaysanayaan aanay biyaha tashti iyo u dhigan jirin oonay ku ururin jirin. waxaanay u ururin waayeen bay leeyihiin waxay ogaayeen inaanay mar labaad dahaaro gelaynin. yani waad arkaysaa daliilkaa tacasubka faraha badan uu ku jiro ayaa ugu weyn waxyaala ay u daliishadaan. culimada intooda badanna waxay qabaan inaanu waxba yeelaynin oo uu daahir noqonayo. marka waa laba qaybood, waalmutagayiru bimaa khaaladahu min adaahiraat iyo mid ku doorsoomay, waalmutagayiru iyo ka ku doorsoomay bimaa khaaladahu wax dheehay oo min adaahiraati daahir ah, waxyaalo kaloo daahiraa dheehay oo ku darsamay. masalan waa maxay? dee waxa qoosh baa ku darsamay, saabuun baa ku darsantay, markaa biyihii way isbedeleen, magacii wuu ka tegey biyanimadii, waa qooshiya baa la odhanaya, waa maraq iyo wax kalea lagu sheegayaa. mar haddii uu magacii ka tegey, magacii biyanimo hadduu ka tegey, naf ahaantooda waa u daahir oo dee haddaad qooshkii iska laacda cidi kuguma haysato oo bimacnaa waa daahir weeye, laakiin dahaarun baanay ku gelaynin weeye. marka waa labadaa qaybood. wa maau najis qaybka afraadna waa biyo nijaas ah. biyaha nijaastaa buu laba u kala qaadayayana. wahuwa aladii ka waya xallat fiihi najaasatun ay ku dhacday, wahuwa duuna alqullatayn isagoo laba jalxadood ka yar, aw ama kaana qullatayn laba jalxadood buu ahaadee fatagayara wuu doorsoomay. waalqullataanina 500 ridlin waa 500 rodol bilbaqdaadiya oo rodolka baqdaad taqriiban ugu dhowaan fila saxi qowlka asaxa haddaynu qabanno. waxau sheekhu leeyahay qaybka afraad ee biyuha ay leeyihiin waa biyo nijaas ah, biyo nijaasoobay weeye. markaa biyaha nijaasoobeyna waa laba qaybood buu yihi. waa biyo ay nijaasi ku dhacday isagoo laba jalxadood ka yar, laba jalxadood isagoo ka yar
hadday nijaasa ku dhacdo ha dooriso ama yay doorinay madhabka shaafici waxa weeye biyahaas inay nijaasoobeen ama wuxuu ahaa ow kaana qullatayn ama laba jalxadood wuu ahaaye fataqayara wuu doorsoomay marka hore wuxuu yidhi waa biyo ay nijaas ku dhacdo laba jalxadood ka yar ama laba jalxadood buu ahaaye wuu doorsoomay kaasina waa nijaas labadaa biyooba nijaas bay noqonayaan marka iyaga madhabka shaafici waa sidaa haddii ay laba jalxadood biyuhu ka yar yihiin nijaasu hadday ku dhacdo ama ha dooriso ama yaanay doorin waa nijaasoobeen bimujarad almulaaqaat bay isku bedelaan ayay ku nijaasoobaan bayda hadday laba jalxadood yihiin oo isbedelaanna way nijaasoobaan culimada badiyooda iyo qayb shaaficiyada ka midina waxay dooranayaan midaarku inuu yahay biyaha isbedelkooda uun oo aan cibro aanay lahayn badidan iyo yaraantahay bekeeri ha ahaadaan ama foosta ha ahaadaan waxa la fiirinaya waa isbedelka uun nijaastaa ku dhacday biyihi hadday isla bedelaanna waa nijaas haddii ay isla bedeli waayaanna ma nijaasoobina biyihii daahir weeyo markaa walqullataan qulladu waa jara ayaa la jalxadda walqullataan 500 radlin bilbaqdaadiyi waa 500 rodol oo rodolka weliba baqdaad ah taqriiban ugu dhowaan hadday rodol iyo ay mid iyo waxaasi dhinmaan waxba dhibaato mare marka hadda waxa masalan lagu tilmaamaa inay yihiin 216 litir 216 litir ayaa lagu tilmaamo waa foosta iyo wax yar weeyaan taqriiban marka ugu dhowaan taqriibkan ayaa marna xagga ziyaadada ayuu galaa marna xagga nuqsaanta imka taqriiban marka lagu leeyahay ugu dhowaan haddii ay ka dhinmaan 500 rodol har rodol hadduu ka dhinmo waxba dhibaato ma ama rodol iyo bari hadday ka dhinmaan marka qaarkoodna taqriib ziyaad u noqdaayo xagga ziyaadada ayuu ka galaa imka marka la leeyahay masalan wiino iman doonaa xagga labada qof ee isku xidhanaya 300 talaabo 300 dhudhun waa inay u dhaxaysaa taqriiban bay yiraahdaan mid iyo laba hadday ku darsanto markaana waxa male weey fil asahi asahana bimaana wuxuu jeedaa khilaaf baa ku jira ee waa haddaynu ku soconno qowlka asaha haddaynu ku soconno weeye ee sixada badan marka qowl kale ayaa ka soo horjeeda oo labadaba uu ku jira inay 500 rodol tahay iyo inay taqriiban tahay buu labadaba asax u noqonayaa oo halka uu leeyahay 500 ridl inuu ka badinayaa xaqan taqriiban tana wuxuu leeyahay waa tahdiidan muqaabilku waa inaanay waxba ka dhinaanin faslun fi bayaan ma yadhuru bid-dibaaghi wixii magdinta ku daahiroobayay ayuu halkan inooga hadlayaa wuxuu sheekhu wajuludul maytati maytada iyo waxa baqtiga haragiisu tadhuru waxay ku daahirowdaa bid-dibaaghi magdin إلا جلد الكلب هرج أيجي والخنزير ضفارك يوم تولد منهما وحي لبض كذا شيء أو من أحد متكوس كذا شيء مو يعني وعظم الميتة ميتة نيف كابختي لفديسة وشعرها يتميز نجس ونجس إلا الآدمية آدمي مو يعني وعشيخ الله هي هرج بختك أما النيف كي لعونه يها هاتو ama qeyrkeed ha ahaatee haraga neefka dhintay ee maytada tadhuru bid-dibaaghi magdin bay ku daahirada hadii la magdiyo oo shay kulul lagaga saaro dhogortii iyo waxa la yariixay fudulaadkii hilibkii iyo wixii dheeraadkaas ku ahaa laga saaro uu daahiroobaya daahir buu noqonayaa oo neefkii baqtiga rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay neef baqtiye oo la jiidayo markaasuu yiri maxay ahaydo waa neefka baqtiyeenu jiidayno wuxuu ma harageeda ku intifaacdaano harageeda magdisataan harageeda kala baxdaan taduru bid-dibaaghi magdin ayay ku daahirowdaa illa jild al-kalb wal-khinzir haraga ayga iyo haraga doofaarka mooyaane labada harag ayaan ayagu magdin ku daahiroobin haraga ayga iyo haraga doofaarka يوم تولد منهما لبدود waxay iska dhaleen ay doofaar waxay iska dhaleen oo min ahadihima ama midkood xayawaan kala ka dhalay ay ri ka dhalay oo kale ama doofaar xayawaan kala ka dhalay ayagu hadii haragooda la magdiyo ma daahiroobaan maxaa yeelay waxay leeyihiin noloshii ay nijaas ku ahaayeen intii ay noolaayeen bay nijaas ku ahaayeen magdintana waxay daahiraysaa harag geerida iyo dhimashadan iyo baqtigan ku nijaasoobay
kabacmaba ayga iyo doofaarkan iyo wixii kasii dhashay ay noloshiiba nijaaso ku ahaayeen magdintu ma daahirinayso ee magdintu waxay daahirisaa keliya wax geeridaas iyo dhimashadaas ku nijaasoobay وعظم الميتة وحول الشيخ ميتة هرجيدة اللفديدة وشعرها أي تمهيدو نفكي بختي تمهيسي لفيسي نجس ونجاس حيرين ميتة أي ميتة قيبه هذه كتير سنين ميتة ونجاس حرمت عليكم الميتة نجاس أي نقنية إلا الآدمية آدمي موياني آدمي أيان ميتة دي سويسي النجاس أنا يا حين حيرين ألا يوعد ولقد كرمنا بني آدم بني آدم كوان كراميني ووان شرفنا ووان ماموسنا وعقال رسولك صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا مؤمنكم من نجاسوبه مركو نولي هي مركو دنتي تونا من نجاسوبه أيود فصل في استعمال الأواني وليالك استعمال كود أيها الكنا إنه هذا ولا يجوز مبنانا استعمال أواني الذهب والكذاب كإن لا استعماله والفضة يوالك فضة إن لا استعمال مبنانا ويجوز وحبنا استعمال غيرهما غير كودين لا استعماله من الأواني واليالك معناها إما كوحيالها نكهد ليو هدي ويل تهي هدي بيتهيو ووحياله طهارة أي كل حد نيدم ويه وطهارة وحال إلى أفر صدق شيء بين الله مقاصد هي وسائل الوسائل مقاصد الطهارة هدي لو قلنا وحيالها طهارة لو قستيها وحوي ويسده يا ميرشده يا جبيسيه يا إزالة النجاسة أفرطها على مقاصد الطهارة والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة على ده مقاصد الطهارة محا مقاصدها هدبا لو قالي وسائل باجرته وسائشها سنوا أفر وحا لو قالي وابيها يا عمودة يا حجر الاستنجاء دقاح لقو سجيسانيو والدابغ يا وحن لقو مقدينيو شيء وح لقو مقدينيو أفرطانا وحا ليلة وسائل الطهارة لبنا وحا ليلة وسائل الوسائل وسائشها سايقنا لقو سيقاريو الإناويل كان كمدا أينو مرين نيمك ويبيه وسائل ما هاي دي بيهنا ويل بيا يقولوا سيباهينهم اجتهادك هدي أي مثلا إسكاكا قلدمان بيوجي بيه ظاهر كاي بيه كهذا إسكاكا قلدمان اجتهاد بقى لو سنة يوال لو جد ده اجتهاد كاسنا وسائل كوكميديا مركب عرشاقه ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ما بنانا إلا استعماله ويل ذهبية ويل فضة ذهبية فضة إن ويل لقدك الله استعمالها ما بنانا حيث رسولك صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ويلك فضة إيه ذهبك وحكو عنينا وحكو عبنا ولا تأكلوا في صحافيما حريه ذنا حكو عنينا أنا كو عبنا معناه هو استعمالات كي كرودن منا عنيد يا عبيد أيوم با شيغي oo de isticmaalka wajiyalkiisa ugu badnaayeen laakiin isticmaalkii kalena waa la mid in saacadad ka dhigatay inaad qalin ka dhigato iyo inaad weyse ka dhigato iyo inaad wax kale ka dhigato toona lama ogola waxyaalaha loo diidayna waxa kamid ah de kibir ay hortu waa طريق للكبر oo qofkii de waxa sameeyay waa qof kibirsan ثانيا waxa kale ku jira inkisaar qulub الفقراء dad qadadii bala oo bakhtiyayo dawarsanaya markay arkaan mid weysadiisiba ay tahay dahab ama fida ay tahay ee waxa laga yaabaa in qalbigoodiba wax noqdo dibadna ay halka wax kala ku dhacda dhici karto ويجوز وحبنا استعمال غيرهما من الأواني وحياله كلا ويلقاها إن لا استعمال هدو قولي كسميسية هدو نحاس كسميسية هدو وحكلا كسميسية هيبة إن لا استعمالها أيضا بنان فصل في السواك هذا يشدي بهالكنا شيخنا وقال لي والسواك هذا يشدو مستحب ولا سنية في كل حال وقت كستا إلا عديد ولا سنية إلا بعد الزوال مركع عبعده إلى تمويان للصائم قفك صومنا وسقنا ذي مويان وشيخ قولي إن لا عضيدا حل كستا إن لا عضيدا ووحصناه ونكسن حيث رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري السواكم مطهرة للفم مرضاة للرب عضي يشدو أفقنا ويطاهر رساه إلهي نويثها لقرساه سادر هديد با حل والبا لو سني هذا هل حالات بكسر إلا بعد زوال الصائم وعلي مركي عاد عيادو كالبركة أي كإيلاتو إقلين كالدنباء أي حقنو إيلاتو يظهر كأي دافتو موياني أولي بقفك صوما وسقناتي موياني حلي هو كراهية بولي بعدنا بعد عيادو أي حقنو إيلاتي قفك نسو ميهي إنو عديد هو كراهيو محال لو كراهي استبيل هذين
رسولك صلى الله عليه وسلم إلا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قفك صومن أفكيسة أرتك صوبحيسة أي وحي كود قونت إلهي أكتيسة ريح المسك يعني عير كوجود قوم بكسي ودقونت هيبول كواحد بعد ما بل يريد أورتي أفك كسو بحيسة ودقونت هي وحي كينيسة إن لينا قدوني إن نديس إنه إن نسولنا إن كراهية هاي لكن سيدا علماء الشافعية بركود أيها قبل نواوي أوكره أو كم إذا الشافعية ذو يالانا حق الدليل كأحوك بضاني وحاو يسوق دورتين إنني كراهية أهين وحق الدليل كأيور الدليل حوك بدن أيان لو هينين تحسنا وارهن سكفك بورسات راد كراهية ما وحاو هزوتكو أمستياكو صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال قفك صومن عذيشي ديش لما كراهي سنبول بعد زوالك والنواوي أيها سايلو شافعية كم ذا كل يبنى يعني ووحلو باهي حلو والبين العادي هذا بابا هالكن وهو في 3 مواضيع أشد استحبابا صدح ميلاد أي سنة نمدش سي أذيك تهيبول وهو في 3 مواضيع صدح ميلاد أيها أشد أذيك أشد استحبابا سنة نمد كعادي يصدح ميلاد بأذو سي أذيك يهيبول عند تغير الفم مركو أفكو اسبدلوه من أزم أمس ويسكو بدلوه الأزم وحلا يدا لبا waa lagu maga azmi aamusna waa leeyay cunta iska deentana waa leeyay way qofku haduu aamusnaadana afkiisu wuu isbedelaa haduu wax cuni waayna afkiisu wuu isbedelaa waqeerihi iyo wax kale haduu isku bedelo waxyaalaha kale caanka bariga waxa kamida basasha iyo toonta ayaa kamida waxa markaa imaka u sii karayday sigaarkan iyo waxaan imaka dadka lagu ibtileeyay ayaa iyaguna u sii karayo kaba sii daran marka afku markuu waxyaalaha isku bedelo in la cadaydo aad bay sunanimadeedu u adag ama gelin dambaad ama gelin horaad ama ha Soomaaliyeed ama yu Soomaaliyeed marka dadku de waa inay ogaadaan adiga goraale waxa dhacday mesela markay masaajidda meelaha isugu nimaado bisha soomka oo kale in dadka urta afkooda ay iswada bedesho waxana keenaya caday la'aanta hatta culimadan la waa karaahiyada waxba yeelmay haddaad imaka cadayato waxa loo xusuumkaaga xataa qolada tiri waa karaahiyo yeelaya ma jirto yaala inagu hadaynu xiliyadan oo kale qof cadayanaya aynu aragno waxa laga yaabaa inaynu qaadano inaanu Soomaaliyeed marka haduu afku isbedelo waa inuu qofku cadaydaa markan ay leeyihiin waa karaahiyo gelinka dambe waa marka aanu qofka afku isbedelin hadii isbedelay waa la cadaynaya saynu tilmaanayna ama adilladu ay u badan tahay caamkaana waa in la cadaynayo gelin dambe iyo gelin horeba qofka ma Soomaaliyeed وعند الاستيقاظ من النوم iyo markuu qofku hurdo ka soo kaco markuu qofku hurdo ka soo kacana inuu cadaydo ayaa ayana aad u adag sunnimadeedu xayira xadiis Bukhari iyo Muslim ayaa wuxuu ahaa kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ida qaama min al-layl yashusu fahu bisiwak markuu habeenkii rasuulku hurdada ka soo kaco waxa ugu horeeyo qabtaa cadayga ayuu soo qaadan jiray deetana afka ayuu marmarin jiray وعند القيام الى الصلاه iyo marka qofku uu salaada u kacayo inuu cadaydaayana aad iyo laxad ba loo adkeeyay sunnimadeeda hayla rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu lawla ana shaqqa ala ummati hadaanan ummadayda ku dhibaynin oo aanay ummadayda dib ku noqonaynin la amartuhum bisiwaaki inda kulli salaah waxaan fari lahaa inay cadaydaan salaad kasta markay tukanayaan inay cadaydaan baan ku waajibin lahaa buud hadaanan ka baqanayn dib ku noqoto dibta daraadeed ay waajibkii inaga daayay laakiin sunnanimadiisii waa la inooga doonay xilli walba faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi fasalkan wuxuu kaga hadlayaa waysada faralyaalkeeda wa furudul wudu'i waysada faralyaalkiisu 6 waa 6 ashya waa 6 shay anniyatu ka ugu horeeya waa niyo inuu qofku niyeeyo inda ghaslil wajhi marka wajiga maylayo waa inuu niyeeyaa maxaa yeelay alla rasuulka ayaa wuxuu yiri innamal a'maalu binniyat amaliyalku waxay ku hirgaa ama ku ansaxaan waa niyooyin qofku waa inuu niyeeyaa inuu weysaysanayo inda ghaslil wajhi markuu wajiga maylayo ayuu niyeynayaa marka niyadiina baadabada qofku waxa la yiraahdaa niyada qasdu shay'in muqtarinan bi fi'li safinu wuxuu waa shay loo qasiyo oo falkiisana la xiriiriso haddii aad biyihi soo qaadato oo aad halkaas soo dhigato isticmaasho adoo weyse u jeeda taasay noqonaysaa niyadu macna talaffuz iyo hadal wax ku xidhan ma hayaan loo fahmin kadalik soomka oo kale waxa dhici karta in la arko dadka qaarkood
oo ilaa maalintii ma soomani maxaa dhacay waana niyeynin oo sanadu niyeyn dee xalay baa nawaytu sooma qadan odhanin ama wadaadkiina tukiyey baan noo xidhin oo aan nawaytu sooma qadan odhanin yani maaha taa mar haddaad soo kacdo oo aad suxuurato adoo soom u jeeda niyadu waa taa waa ficilkaa qasadka iyo ficilka aad israacisay ayaa niyo la yidhaahdaa wa ghaslulwajhi waa wejiga oo la maydho ka labaadna wejiga maydhidiisu noqonaya wejiga xadkiisuna waa timo caada ahaan halkay ka baxaan iyo halka ilaa lafgadheed macnaa caada ahaan halkay ka baxaan waxaa la leeyahay haddii dee qofka ay sunnayaasha soo galaan timihiisu dee wejiga dadka caadiga halkoodii unbuu ka bilaabayaa haddii uu dee odaygu yar bidaarayso meelaha damba tagtana halkaa kasoo bilow la odhan maayo halkii wejiga caadiga ahayd ayuunbuu ka bilaabaya iyo dheg ilaa dheg balladhna waa ilaa dheg ilaa dheg wa ghaslul-yadayni ka saddexaadna waa labada gacmood oo la maydhay maca almirfaqayn maca alxusullada oo la maydhay weeye ka afraadna waa masxu bacdi ara'si waa madaxa barhkii oo la masaxo shaaficiyadu waxay leeyihiin madaxa barhkii oo la masaxa way ku filantay wamsaxuu biru'uusikum madaxyaalkiina masaxdaasa waxay ka dhigantahay ba'daasa tabciidiyaa bay leeyihin barh masaxa bay ka dhigantay ama dee madaxa masaxadii dee barh haddii la masaxo madaxa u masaxay waa la odhan karaa bay yidhahen wa ghaslu rijlayni iyo labada lugood oo la maydho maca alkacbayni maca alkuraamaha iyo labada lugood oo la maydho maca alkuraamaha maxaa yeele ilaahay baa dee aayaddii qur-aanka ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa kuwa alliya nebi rumeeyo markaa doonto salaada inaa u kacdaan faqsiluu wujuuhakum ilahay wuxuui wajiyaalkiina maydha waydiyakum ila almaraafiqi waxa kaloo maydhaan gacmihiinna ilaa suxullada wamsaxuu biru'uusikum madaxyaalkiinana masaxa wa arjulakum ila alkacbayn lugihiinana masaxa maca kuraamaha watartiibu calaa maa dakarnaahu sidaa aan usoo sheegnay in loo kala tartiibiyana waxa weeyaan ka afraad ka lixaad baan leeyahay waa faradka lixaad in sidaa aan usoo sheegnay loo kala tartiibiyo oo niyadu u horrayso wejigu ku xigo gacmaha maydhitaankooda ku xigo madaxa masixidiisu iyo lugahana loogu dambaysiiyo wa sunanuhu 10 ashyaa haddaba sunnayaalka waysaduna waa 10 shay waa waxyaale waxasri ilkhisaalkii ina soo lahaa khasaalka in adii koobtadiyo ayuunbay ka dhigantay mooye way ka badan yihiin boqolaal bay ka badan yihiin waysada sunnayaalkeedu ka ugu horreeya atasmiyatu waa inuu eebba magacaabo u yidhahdo bismi illaahi markuu weysiisanayo qofku inuu bismi illaahi wa ghaslu lkafayni qabla idkhaalihima alinaa markuu bismi illaahi qofkii yidhaahdo likulli amrin dii balin laa yubda fiihi bismi illahi araxmaan araxiim fahuwa abtar waa mid daba go-an baa arrin kasta oo arrin weyn u saaxiib ahoon lagu bilaabin magaca ilahi waa mid daba go-an laa wudu'a liman lam yudkir isma allahi calayh wayse uma jirto qofkaan magaca ilaahay qabanina xadiis baa ku soo arooray xadiidaas baa laakiin xadiidkaa dambe laa wudu'a liman lam yudkir isma allahi calayh ayaa daciifa sidaa daraaddeed bay u yidhahdeen waa sunna culimada qaarkoodna waaba waajibiyaanba waa inu ilahay magaciisa qofku qabsadaa wa qaslu lkafayni qabla idkhaalihima alinaa hadduu qofku weelkii uu ku weysaysanayay intaanu faraha gelinin waa inuu maydhaa gacmaha wa qaslu lkafayn qabla idkhaalihima alinaa weelkii uu ku weysanayay intaanu gelinin waa inuu gacmahana maydhaa maxaa rasuulku wuxu uhi markuu midkiin soo baraarugo yaanu gacantiisa weelkii gelin ilaa uu 3 jeer maydho maxaa yeelay ma oga gacantiisu meelay bariday habeenkii meelay qabatay iyo nijaasa inay taabatay ma oga walmadmadatu walistinshaaq sunnayaasha waxaa ka mid ah luqluqasho iyo sandaarsi inuu qofku luqluqdo u sandaarsado markaa in la jamciyana waa sugnaatay in la kala fasliyana waa sugnaatay oo masalan intuu mid qaado uu isu mariyo sankii afkii haddana qaado isu mariyo haddana qaado isu mariyo iyo inuu afkana mid u qaado sankana mid u qaado iyadoona waa sugan tahay rasuulka labaduba way ka sugnaadeen waxa la yidhi qofka sooman isaga wuxuu iska ilaalinayaa un inuu ku xeel dheeraado rasuulku wuxuu yihi wabaaliq ku xeel dheero istinshaaqa iyo sandaarsiga ilaa an takuuna saa'iman fabirifq haddaad sooman tahay si yar oo debicsan baad ula imanaysaa waayo haddii aad khaaf tidhaahdo fiif kor u tidhaahdo ay kugu siibtaan biyihii muqasir baad noqonaysaa qof gabood falay dabeedna soomkaagii u buraya laakiin adoo caadi iska luqluqanaya haddii kugu siibtaan qof gabood falay lagu odhan maayo soomkii kaa jabi maayo wa masxu jamiici ra'si madaxa oo dhan oo la masaxo ayaa isaguna sunnayaasha ka mid a had iyo gooraale markuu madaahibtu ay iskhilaafaan ee mid uu shay diido masalan waajibnimadiisa uu diido ka kalena sunno ayuunbuu yidhahdaa iminka culimada kalaa qabtaa in madaxa oo dhan la wada masaxo madhabka shaaficina waxa wey in barhkii la masaxo sunnihiina waxa weeye si bal khilaafkaa looga baxo in madaxii o dhan la masaxo dee hadiga rasuulkuna wuxuu ahaa 3 arrimood baa ka sugnaaday baa la rasuulku markuu xagga masaxa madaxa inuu madaxa dhammaantii wada masaxay oo intuu labadiisa faray oo isku qabtay
oo xaggan kaga bilaabay hore ilaa qadaadka uu gaarsiiyey dabeetana uu soo celiyey way ka sugnaatay waxa kaloo ka sugnaatay ayadoo madaxa wuxuu saaran yahay cumaamada iyo ay koofiyadii wax ugu duuban yihiin inuu ku dhamaystiray waxa uu saarnaa madaxa taasina way ka sugantay waxa kaloo ka sugnaaday ayadoo masalan koofiyadii ay wax ugu jiraan inuu madaxa barkii masaxay dabeedna uu ku dhamaystiray intii kalena laakiin waxa aan marnaba rasuulka ka sugnaan baa albatta ay culimada qaarkood ku tilmaameen madaxii qofka oo bannaan inuu in yar iska masaxdo ayaan rasuulka ka sugnaanin markaa sida wanaagsan waxa weeye ama soo feedhaamay uu feedhanin inuu dib u celiyo waxaad arkaysaa dadka qaarkood baa soo yar feedhay oo dabeedna intay timaa soo yar taagaan ayaba ma kala yar dhowrsadaan markay wejiga maydhayaan arkaysaa iyaga hoosta ka yar gelgelinaya marka ama soo feedha ma soo feedhanin waa inaad markaa sida inta xagga hore kaga bilowdo oo labada gacmood isku haya haddana aad soo celisaa wa mas'ul udunayni zaahirahuma wa baatinahuma waxa kala sunayaasha kamid ah labada dhagood in la masaxo daahirkooda iyo baatinkooda daahirkooda iyo baatinkooda in la masaxo oo halkeeba dhagaha daahirkooda iyo halkeeba si baatinkooda yani baatinku waa intan xagga sa baatin leeyda daahirkuna waa xagga dambana suulkaad ku masaxaysaa xaggana waxaad ku masaxaysaa labada faroode murdisooyinka bimaa jadiidin biyo cusub ayaad waliba ku masaxaysaa bay yiraahdeen biyo cusub ayaad ku masaxaysaa oo macnaheedu wuxuu leeyahay biyihii madaxa ka soo hadhay in waynaad ku masixine waa inaad biyo cusub ayagana aad u qaadaa waa si madhabka Shaafiiciga culimada kale waxay qabaan in wixii madaxa ka soo hadhay in lagu masaxo wa takhliilu lixyati al-kaffati garkii weynaa kafa yani waa garkii faraha badna oo la takhliiliyo oo gacanta xagga laga soo geliyo marka qofku weysaysanaya aanu dusha kaga deyninin wa takhliilu asaabi'i al-yadayn wal-rijlayn waa inuu isdhex geliyo faraha gacmaha farahooda iyo lugaha farahooda waa inuu isdhex geliyaa takhliil ku sameeyaa oo kuwii gacmahana saa isu dhex geliyaa markuu weysaysanayo si aanay meel angegani u soo bixin xagga lugahana waxay dhayn wuxuu kaga bilaabayaa lugta midig fariyaradeedaas uu kaga bilaabaya xagga hoos soo marinaya dabeedna taa bidix ayuu ku khatimayaa bi khinsar min khinsar ila khinsar macnaha fariyaradaas uu takhliilinaya fariyarada midigna uu ka bilaabay ila khinsar fariyarada bidixna uu ku khatimaya wa taqdiimu al-yumna ala al-yusra waxa kala sunayaasha kamida inuu midigta laga horeysiyo bidixda oo gacanta midig hormeedo oo lugta midig hormeedo wa taharatu thalathan saddex inuu tahara qaataana sunayaasha ayay kamid tahay oo xubin walba oo saddex jeer maro waxa u badan yihiin madaxa oo kale ayay xadiis u badan tahay in hal mar la masaxayo oo isaga saddex laga dhigaynin inta kale laakiin saddex ayaa laga dhigaya marka waa sunne haddaad hal mid ku gaabsato ama aad laba ku gaabsataana ayana mid banaan weey inagu waxaynu waaxid sanoo markay biyo inaga yar yihiin wal muwalaatu xidhiidhin xubnihii la xidhiidhiyo oon la kala angejin ayaa iyana sunnayaasha ka mid ah inuu qofku xidhiidhiyo oo masalan dee isku hal mar wada weysaysto waa sunna baynu leeyahay maxaana yana weysadii waxba yeelaynin masjidkan imika aynu joogno haddaad inta hore ku maydho oo cagaha reebto oo dabeedna aad cagaha dumbuluq ku maydho adoo niyo hargeysa ka tagay oo wax ku banaan weey hadana in weysadii kaasi jabin oo wax ku banaan ama gelinka hore haddaad saacada ka hor 10ka intaad weysaysato bad aad 12kana inta kala dhamaystirtaa wax ku banaan weey laakiin xiriirinta ayaa ugu wanaagsan in weysadii mar la israaciyo la xiriiriyo faslun fil istinjaa waxa istinjada la yiraahdaa ayuu fasal yahay والاستنجاء استنجادو واجب وواجب من البول والغائط كاذدا iyo saxarada in laga istinjooda waa waajib ayna rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo maray laba qabri ayuu soo maray markaas wuxuu yiri inahuma yu'adaban labada qabri dadka ku jira waa la cadaabaya wama yu'adaban fi kabiir dambi weyn lagu cadaabi maayo balinahu kabiir ma saadan rasuulku dambi weyn weeye ama ahaduma fakana la yastatiru min al-bawl midkood kaadida ayaanu iska bari yeeli jirin oo iska dhowri jirin waa dadkan imka intay suuqa istaagaan dabeetana intay gidaaradaas ku qabtaan oo nay kaga siiyaan dabeetana iska dhaqaajinayo intay soo iska xidhaan waa kuwa weeye kuwa rasuulku sheegay la cadaabay ama deeyo kaadidba ka dhamaanaysi joonaya dabeetana ay ku soo dhacayso hadana waa malaaqar fakana yamshi binamima ka kalana isku dirku yaqaano nin ummadan ka dhax shaqeeya ayuha wal afdalu hadaba qofka waxa u fadli badan أن يستنجي بالأحجار إنه دقح ياركو استنجيستو ثم يتبعها بالماء دويد نبيه الراعيه
intuu dhagax yar ku isjeeso inuu haddana biyo raaciyo oo waxay yidhahdeen qoladii reer Qubay ilaahay amaanay fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatadahharuu wallahu yuhibbu almutahhiriin qolada alla yidhi waxaa ku sugan rag jecel inay istaahiriyaan ilaahayna kuwa istaahiriyu jecel yahay xadiid bazaar uu wariyey waxay yidhahdeen waxay israacin jireen markii ilaahay maxaa samaysaa labadaasaan israacinaa bay laakiin waa sanad daciifa sidaa daraaddeed baa la tilmaamay inaanay sunno ahaan u sugnaanin labadoo la israaciya ويجوز أحمد أن يقتصر على الماء إنه بيكون قابصده أو على 3 أحجار أما صدح دقاح عاديا هذه قصبات سلا وضوء ليسو وحكو بنان إن بيه خليه كويس جيستيه ده خليه كويس جيسته ويكون بنان تي مركب بيه لو ده خليه كويس جيسته وطهارته ده وكاملة على 3 أحجار صدح دقاحه ينقي بهن وكظهر المحل ماشي صدح دقاحه ماشي كظاهريه inuu ku gaabsado ama biyo ku gaabsado ayaa banaan fayda araada markuu doono iqtisaar gaabsasho ala ahadina midkood inuu ku gaabsado falmaa biyaha afdalu fadli badan oo wanaagsan way biyo cayntii afartiba way tirayaan dhagaxuna waxa laga yaabaa cayntii inuu tiray raadkii aanu tirin hada wayeej tanibu wuxuu ka dheeraanaya buri istiqbaal alqiblati wa istibdaaraha fi sahra markay meeshu banaan tahay waa inaanu qibladana la qaabilin dabadana u jeedinin fi sahra markay banaan tahay weeyii markay meeshii banaan tahay ee qofka aanay waxba u oolin waa inaanu qibladana ula jeedinin dabadana u jeedinin waa inuu dhinacyada kale u jeestaa ayay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri idaa ta'ahadukum al-ghaa'ida fala yastaqbilu al-qibla wala yastabdiruha markuu midkiin yimaado meeshii uu ku saxaroonayay qibladana qaabinayo dabadana u jeedinin waa markay meeshu saxara iyo banaan tahay laakiin mesela marka ama aad wax isku beegtay gidaar ama laan ama geed markaad isku beegto ama meeshuba meel suuli iyo meel xamaam dhisan ay tahay ayada waxba u daba jeedinta iyo ka jeesiyadu midna wax marka dhibaato ma laha wayajtanibu waxa kale ka dheeraanaya albawla inuu ku gaajo wal qaayda inuu ku saxarado filmaa raakid bihi fadhiyay waa karaahiyo waa inuu ka dheeraadaa ama yaraadana ma badnaadaan حين رسولك لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وربيها أفضل متكين يو كوكاجن وأنا كسحردنا وكسي درنتاي فكوين سكيل اللي بيها أفضل وتحت الشجرة المثمرة جيد مداله أيضا وينو سكيل عليها إنه كهوس كاجا أما كسحرده جيد مداله بحيث ولا وقت مداله بحيث سبيانا يهان وفي الطريق وضد يددكم مريين والظل يحركي أيضا وين سكيل عليها طريقة يدتكم مريين هي هركي أي هرسنيين أيضا وين سكيل عليها حين رسولك صلى الله عليه وسلم تقول لاعنين وروح سكيل على سامدوده ولا هذا الشيء إن عرض ضدك سوتشي دي ضدك كل على ضيان وما حيبا لرسول الله الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم وكاسوليه وكدغان أي ضدك وددوده أما هركوده ماشي يري هرسدان أما أي وددا أي مريان كاسوليه كدغان يوي halkaas ay dadku ku lacnadayaan iska ilaali waa laba shay oo xun weey marka harka waxa la bidaba yiraahdeen de hadii meeshu ay yar qabowdahay meesha yar la yar dugsanayay ayaduna waa la mid de waa hadaan loo harsanayno loo dugsanaynin wax munkara hadii munkar iyo xumaan iyo imtixaan la isugu yimaado meesha inaad loo qasadaan marka wanaagsan ayada waa thuqbi iyo godkii na waa inuu iska ilaaliyaa godkii jeexaha waa inuu iska ilaaliyaa oo waxa la yiri waxa dhici karta godka in xayawaan yari uu ku jiro oo aad ku waxyeelaysaan waa wax dhici kara in adiga wax kaaga soo boodaana waa wax dhici kara ay ku waxyeelayaanba wala yatakallamu wa inaanu hadlin qofku ala al-bawl wal ghaa'idi markuu saxaroonayo iyo markuu kaajayeeyo waa inaanu hadlin maxay ilaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam nin ayaa soo maraysa oo kaajayo dabeedna wuu salaamo rasuulku kamuu celinin ilaahayna wuu caroodaa buu rasuulku labada qof intay marka kaadi ama saxaro u baxaan sheekaysta ilaahay wuu cado waxa ilaahay xadiis keenayna waa wax weyn wala yastaqbilu ash-shamsa wal qamara dayaha yacadana wa inaanu la qaabilin walkii ay ka soo baxday dul culimo qasdaanuna imika waxaynu haynay inaan qibladina la qaabilin dabadana loo jeedinin xaggan iyo xaggan loo diiday hadaba xagga la qaban macna waa inaan aad wax loogu si fasirin u buuhaayo horta halkan ay leeyihiin cadceeda iyo soo bixideeda iyo inaan dayax iyo cadceeda toona la qaabilin waa markay soo baxayaan iyo markay dhacayaan way horto ee mar walba ma aha waa inaan lana qaabilin dabadana loo jeedin wala yastaqbilu ash-shamsa wal qamara wala yastabdiruhuma dabadana u jeedin maayo waa karaahiye bay yiraahdeen
meeshaa markii aan wax saatiri aanu oolin laakiin axaadiida ku soo aroortay waxa uu ku tilmaamay Nawawi kitaabkiisa majmuuc la yiraahdo inuu baatil yahay xadiidkaasi aan waxba ka jirin ibn Salaahna wuxuu la yucraf lama garanayo buulo markaa xukunkaasi walakin sharqo oo qaribu markaa rasuulku leeyahay qibladaha qaabilina hana u daba jeedinina laakiin sharqo oo qaribu ama cad ka soo baxu la jeesta ama cad ka dhac de kaasabay toosaga hormanayaan wala yastanji bi yaminihi qofku midigtiisana ku istinjaysan maayo macnaha adiga goraale gacanta midig ee waxa lagu qabtaa waxa la yeelay wixii wanaagsan oo dhan baa lagu qabtaa gacanta bidixna wixii la qurumaysanayo ayaa lagu qabtaa marka wala yastanji bi yaminihi midigtiisa waa inaanu ku istinjaysan qof wuxuu yiri saxaabi Salman nahana rasuulullaahi an nastaqbil alqiblata biqaytin aw bawl rasuulku wuxuu naga nahiyay inaan qiblada la qaabilno saxaro ama kaadi aw nastanji bil yamin ama inaan ku istinjaysan midigta aw nastanji bi aqall min 3 ahjar ama saddex dhagax wax ka yar inaan ku istinjoono aw nastanji bi raji'in aw 'azm ama inaan ku istinjaysano saalo ama laf ayuu noo diiday marka qofku markuu istinjaysanayo waa inuu ku istinjaysa gacantiisa oo markii masalan bal dhagaxii maxaseba loo dhanayaa bay yiraahdeen dhagaxii oo kale marka lagu istinjaysanayo say waxa dhagaxa gacanta midig baa lagu qabanayaayo de marka waxa jirkan kalun baa laga shaqaysiinaya si uu jirkan kale ka shaqeynaya uu noqday gacantii midigta shaqeynaysa aanay u noqonin wallahu a'lam halka inuu joogo